رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. dhammaan walaalahay waa idin salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Walaalkiin Axmed weeye. Maanta waxaan jeclaaday inaan idiin soo gudbiyo insha allahu tacaala cashar aada u muhiimsan. Waxa weeye wuxuu ku saabsan yahay qayb ka mid ah qaybaha taariikhda islaamku meelaha uu soo maray. insha allah videogan masawiro badan baan soo geliyey oo meelihii ay ka dhacday waxyaalahan maaragtay sheekadan aan wado caawa meelaha aniga laftoodu shakhsi ahaan aan soo maray goboladaas oo dhan soo wada maray soo eegay dhowr jeer baan tegey. Marka waxaan jeclahay inaan idiin soo gudbiyo fikraddan ka qaatay iyo taariikhdu siday ahayd ayaan jeclahay maanta inaad ila sheer garaysaan insha allah oo kana faa'iidaysataan. ilmaha caruurta dadka yaryarna waa muhiim in la fahansiiyo taariikhaha uu islaamku soo maray. Markaan la sheer gareeya yani insha allah marka idinku daawataan ilmahana la sheer gareeya oo tusa waxyaalaha kan insha allah in laga faa'iidaysto dhammaan. waxaan ku sameeyey videogan af Soomaaligeena. videoga markaad YouTube-ka aad hoosta eegtidna linkiga ka hooseeya isagoo af Carabi ah ana waan sameeyey. macnaha qofkii raba inuu Carabi ahaanna ku dhegeysto ku dhegeysan karaa linkiga taabo. qofkii dee Soomaali ahaan ku dhegeysanayana waad haysataan insha allahu tacaala. marka waa bilaabi doonaa. markay ahayd 1974 madaxweyne ka mid ah madaxweynayaasha carabta ayaa wuxuu yimi dowladda Spain ayuu soo booqday. sheekada meel yar badan ka soo bilaabaya weli ma aan dhex gelin. markuu soo booqday dowladda waa la soo dhaweeyey. Spain baa la yiraahdaa dowladda waa taqaaniin waa la soo dhaweeyey. madaxweynihii Spain waqtiga haystay waxaa la oran jiray Franco 1974 bay ahayd. markii la soo dhaweeyey wuxuu yiri ninkii Isbaanishka wuxuu ku yiri madaxweynaha carabka wuxuu ku yiri niyow kaali ku yiri maanta magaalada Madrid ayaan ku soo tusayaa soo daawo ku soo dalxiis. marka madaxweynaha carabka wuxuu yiri maya waxaan jeclahay magaalada Qurtuba igee. kama Qurtuba waa meesha caawa ka sheekeyn doona insha allah. sheekaduna caawa Qurtuba ka sheekeynaysa iyo waxa soo maray iyo ma sha allah. marka waa la geeyey ninkii madaxweynaha Qurtuba la geeyey. masaajid weyn baa Qurtuba ku yaal la yiraahdo al-Jaami' al-Kabiir. Spanish waxay u yaqaaniin masjid bay yaqaaniin masjid. waa la galay masjidkii. marka dadku way yaabsan yihiin yani muxuu doortay Qurtuba sabab baa jirtay. marka iyagoo taagtaagan dee taban askartiisii iyo raggii sare ee wasiiradiisii la socday ee ka soo raacay wadankiisa ka soo raacay mid wuxuu ku yiri war nimankiinan qof codkiisu adag yahay oo cod weyn ayaan u baahanay bal maanta haynoo adibo. mid baa yiri ana wiiri sayidi aniga weey. طبعا gaaladii way yaabsanayeen waxay lahaayeen meeshan aan taagtaaganahay 700 oo sano laguma adimin. waa cajiib moogta muslimiinta marka laga qaaday meesha 700 sano laguma adimin. marka ninkii wasiirka madaxweynaha ku yiri carabka ku yiri sayidi uu yiri meeshan 7 sano laguma adimin. marka suu yiri waa adri buu yiri adri waan ogahay in lagu adimin 700 sano laakiin wuxuu yiri ma ilaawin buu yiri ma ilaawin. القدس بها الرئيسة أندلس ما قرطبنا ويدم وتلبات. أنا وحوش هذا نيته حوش جرت معلم المحكمة إذا إن أو إسلام كسون نقول دونه حوج كيسي باور كيسي ولا فرود دونه ما نقول. وما ذلك على الله بعزيز إلهي سبحانه وتعالى قدرته يسوع إلهي وكركرة. مركا والقطو كذي جامع قرطبة كتو كذي صلاة دي جماعة كتو كذين ووح عجيبة يعني صلاة الجماعة كتو كذين قرطبة. هذا ما إن شاء الله تعالى إنه بلونه 10 كينا. نحن كبلا بنا مدينة قرطبة لما قالوا إنكي هم مهم سنة بريجا أندلس لكلي مسلمين تو أي قالين. طبعا مسلمين تو مركي أندلس قالين وحي كي مادين الخلافة الأموية أي كدم بيس شكذا إن شاء الله تعالى 10 في عبء نكثرين دون تالفتي. الخلافة الأموية سلدقوا وحوها الشام بلاد الشام بوها ولا سعودان. مركي بربرس الخلافة الأموية وحاسوها ري خلاص تدكي الخلافة العباسية بابيسي وحاسوها ري إن الماركتي عجيب أو أدق أو ما شاء الله يربوها. وحلونجري عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم. وفيرسو عبد الملك ابن مروان وخلفاء أمويين أووينا وجيبوها. إنكو مشوا كعرري مركا
adigu dariiq dheer buu sii raacay insha allah waan ka sheekan doonaa dariiq dheer buu sii raacay akritaankii andalus ayuu soo gaadhay markaa aad baa loola shaqeeyey markuu andalus soo gaadhay qurtuba ayuu wuxuu ka dhigtay caasimadii alkhilaafa alumawiya kadib isagaa meesha khaliifa ka noqday markii khilaafadaasu burburtay isagaa khaliifa ka noqday haddaad aragtaan taaladan waxaa qoray waa gabay yar taaladan waxay ku taallaa magaalada qurtuba dhexdeedii ku taallaa oo spanishku iyagaa mugtay aad uga helay waxyaalaha muslimiintu ka tageen meesha marka waxa weeye waa jaamacadda waa universityga jaamacadda qurtuba ee weyn ee ku taalla magaalada abyaad shicr gabayo ah waxaa qoray nin faqiih ah oo caalim ah oo dee ahli diin ahaan jiray meesha joogi jiray oo la oran jiray ibnu catiya wuxuu dhintay ramadaan 541 hijri waqti hore ay ahayd marka ninkan wuxuu ahaa ragga culimada buu ahaa moogtahay dowladda la oran jiray dowladda muraabitiin waa dowladihii soo maray andalus waxaa lagu soo qoray afar wax wuxuu yidhi biarbacin faaqat alamsaara qurtubatun afar wax bay qurtuba ay ku dhaaftay magaalooyinka ama dowladaha kale afarta wax waa maxay biarbacin faaqat alamsaara qurtubatun waa maxay ka ugu horreya wuxuu yidhi minhuna qantarat lwaadi waa bridjka yar ee meesha laga sameeyey ee magaalada moogtahay labada dhinacba kala gooya bridjkana waa soo soconnaa sheekada imka insha allahu tacaala qandaradaasoo kale ma jirin baa leen adduunka waqtigaasoo kale wa jaamicuha iyo jaamic qurtuba aan idin sheegayan kulahay ninku markuu ku tukaday jaamic qurtuba la yaqaanay haataani thintaani buu yidhi taasu labadaasuna waa labo والزهراء ثالثة سبحان الله مدينة الزهراء أنا وحي أهيد وعجوبة بي أهيد معجسو أنا عادي أهين بي أهيد تانا وسو أرقني إن شاء الله ويستوسع عطا 10 كان قديس إن شاء الله والعلم أعظم شيء هو رابعها وحيري صدح ذا أفر تاوح علمي وقبضنا لأنه مدينة قرطبة علمي أي قادي الدون كائن كون ولا عيد مقارن علماء ذا الدون كنا ما يسويني وحكا طبعا نقطه وأنا كشي كون دون إن شاء الله تعالى هو مقدمة جوية magaalada qurtuba markaad eegtid subxaan allah sanad ka hor aan dib noqono sanad ka hor may iga dhalaada 1000 sano ka hor qabla 1000 caam 1000 sano ka hor magaalada qurtuba yani waxay ahayd koolma waa 350 hijri marka la eego 300 ku dhowdhoobay 350 hijri waa 1000 sano ka hor bay waxaa ku yaalay 28 xaafadood سبحان الله 28 حافظود باكو يالي او ضاحيه 16 كن او غري باي لهيد 16 كن او غري او دار غري معناها دي حديقديسي فيلا او كله حديقديسي له waxaa deganaa magaalada kun sano ka hor waxaa deganaa 500,000 qof baa deganaa yani bal imagine inta ay magaaladu lakeed 500,000 baa kaliya deganaa waxayna ahayd magaalada labaad ee adduunka inta magaalada koowaad adduunka waxay ahayd Baghdad bay بغدادنا waxaa deganaa 3 milyan oo qof bariga waxaa ku xigay Baghdad baa 3 milyan ahayd Qurtubana waxay ahayd 500,000 waxaa ku sii xigay magaalada la Ishbiliya Ishbiliya waxay ahayd magaalo kamid ah magaalooyinka muslimiintu fureen Andalus oo Qurtuba waxay u jirtaa ilaa 3 saacadood waxaa deganaa 400 kun Ishbiliya waxay ahayd magaalada adduunka ugu weyn waxay ahayd magaalada ugu dad badan adduunka macnaha zaxma ay ahayd ma sha Allah ugu xadaarad fiican waxa loo bixin jiray jawharat alcaalam macnaha diamondka adduunka ayaa loo bixin jiray adduunka dadku waxay u iman jireen say u daawadaan dalxiis baa loo iman jiray hadda dadku markaa tiraahid xagee tagaysaa dalxiis wuxuu koranaya waxaan tagayaa Paris ama waxaan tagayaa Roma ama waxaan tagayaa New York beriga dadka xitaa boqorada jooga Yurubta kale iyo maaragtay Yurubtan ka sarreysa maaragtay Spain waxay u iman jireen dalxiis Qurtuba loo iman jiray lana cilmigoodu cilmi caadi ma aha culimadu dhan bay isugu iman jireen meesha si ay u daawadaan waxay u iman jireen madiinada Zahra 6 kilomitir bay u jirtaa Qurtuba aslan ku soo arkay halkaas loo iman jiray dalxiis waxay u iman jireen qantarad Qurtuba qantaradu waxa weeye waa bridge-kii imika aan tusayay dalxiis bay u iman jireen iyo masjid Qurtuba ka waaxda u iman jireen si ay u daawadaan waxay u iman jireen maktabada Qurtuba maktabad cajiib ay lahayd iyo jaamacad dhan bay lahayd oo university bal waqtigaas ay lahayd jaamacad wax lagu baray ka hor subxaan allah dariiqyadu waxay ahaayeen marsuuf dariiqyada magaaladu waxay ahaayeen yani sibir bay lahayd way siblinaayeen shawaaricdu ama dariiqyadu leyr bay lahayd yani beriga subxaan allah yani
adduunkan yurub berigaa waxay ku noolayd dadku layd ma jirin maaragtay maba aqoon waxan wuxuu ahaa guryahoodu si kale ahaayeen buurahay deganaayeen magaaladina nuur waxay lahayd subxaan allah nal bay lahayd maxaan kaloo irahdaa dariiqyadu dhagxan waa yani sibidh waa la sibdhiyay dariiqyada subxaan allah maanta inagoo ku nool qarnigii 21aad waxaa jira subxaan allah dowladaha jira shawaaricdoodu aan leyd lahayn inagoo ku nool qarnigii 21aad bal ka waran cajiib magaaladu waxay lahayd dhowr suuq bay lahayd suuqa dahabka ah suuq baa jiray silaaxa hubka ah macnaha seefaha alaabta suuq baa jiray kutubta ah suuq bay lahayd ubaxa ah waxay lahayd waraaqaha maaragta wax lagu qoro dhowr nooc ayaa jiray suuq mid kasta waraqo kasta nooc bay lahayd suuq gooniya chemicalka sanaacadaha maaragta chemicalka suuq bay lahayd gooni ah dawooyinku suuq bay lahayn gooni ah jaamacadaha yani xataa subxaan allah jaamacadaha markaad eegtid waxay lahayd suuradahan waxa weeye meelihii aan kusoo aragnay guryihii siday qaabkay ahaayeen saasay ahaayeen maaragta dhakhtarada xitaa intana jaamacada u iman subxaan allah baris dhakhtar wax la yiraahdo waxay baratay 900 oo sano ka hor markii la dhisay المستشفى الإسلامي الأول بدمشق يعني دمشق مركي لقى دسي دختركي ugu horeeyay muslimiinta ahaa 9 boqol oo sano kadib ayay maaragtay subxaan allah ayay andalus ayay France ayay Paris ay dhistay dhakhtar 9 boqol oo sano kadib qurtubana marka mustashfa dimashq al-islami al-awwal markuu la dhisay uu yaalay konton dhakhtar bay lahayd ka hor imagine hadda waa 350 hijriya markay ahayd qurtuba waxay lahayd konton dhakhtar bay lahayd يعني 200 sano kadib iga raadata 200 sano kadib marka la dhisay mustashfa dimashq 200 sano kadib waxa yaalay waxaanu haynay bay yiraahdeen konton dhakhtar يعني 700 sano ay ka dambeysay Paris qurtuba عجيب وهو عجيب weey حتى hadda degtid jaamacadaha waxaa jiray الجامعة العلمية الجامعة الأموية جرتي هي جامعة قرطبة حتى waxaa jira boqorka England warqada uu soo diray taana waa arki doonaa imka insha Allah warqada uu soo diray xukaamtii kamid ahaa xukamaa al-Andalus maaragtay khulafadii oo yiri ilmahayga wax bartaana waa soo socota insha Allah taala marka magaalada waxaa dhisay Cabdiraxmaan waxaa markuu soo galay Cabdiraxmaan ad-Dakhil uu asisay ka shaqeeyay وكهرت قصر كيسي قصر السلطان عبد الرحمن الناصر عبد الرحمن ده قصر وين بمشى كدسي وحو كان سبحان الله بلاد الشام أيوه حو كسوق هذا النخيل جذا ماركتان نخيلك جذا تمرته سجى سوق هذا وحو كسوق البضي تين الزيتون الرمان ماركتي بلاد الشام بكسوق هذا لأنه لابتر نروح لوبير تريد نعم تمرته يحصلون markaasuu xadiiqada qasarkiisa imaarad qurtuba wuxuu ka sameeyay xadiiqad cajiib wallahi marka aragtay wadiyaabaysa say qaabkeeda iyo subxaanallah intaasoo sano oo tagtay xadiiqadu sidii ay u dhiseen buu dhisantay marka geedkii ugu horeeyay timirta isaga keenay Andalus subxaanallah marka qasarku xitaa xadiiqadiisu xadiiqad caadi ma aha qaabka loo dhisay laakiin waa gudaha weeye waa qasarka gudaha haddaba in u gudubno الجامع الكبير وكانوا كي أعجبها عن شيء كنا معجزة وهي المسجد الجامع الكبير في قرطبة هداد كاركتان دوش شوطة وكان نحن كوتشرة ماشي جيدها لنا وماشي نحن اللي قلت كان جري باحدي ويا الباحة اللي هو يسستي دي بدي مارت كدوهنا وحوي ومساجدك لكن مساجدك تاريخ هو تاريخ عجيبة وحال يري مركي أهيد 196 هجري يعني بعد الهجرة 196 سنة كدب waxay ahayd 758 ميلادي markay ahayd عبد الرحمن الأوسط wuxuu ahaa عبد الرحمن الداخل أميركي أندلس maartay ugu horeeyay soo galay mid kamid ah inamadiisii macnaha jiilkii ka dambeeyay waxa loo jeedaa عبد الرحمن الأوسط isaga yiri hal dhiso
awal waxay ahaan jirtay qayb ka mid a kiniisad bay ahaan jirtay uu ka iibsaday kiristankii markaa isagaa dhisay inankiisa hishaamna uu kasii dambeeyey uu sii dhisay wataa suurad kaloo kasoo dhow wuxuu ku yaallaa maaragtay magaalada dhexdeedu ku yaallaa qasarkuna kama foga waka subxaan allah markaad eegtid albaabada aayaad qur'aaniya ku wada qoran meel kasta waad aragtaa subxaan allah aad bay caan ugu tahay maaragtay acmidadan dhaadheer meesha taalla waa aragtaa subxaan allah waxaan xusuustay markaan gallay wadaad saaxiibka ayaan sii raacnay markaasuu suurad baan ka sawiray isagoo fadhiya camuudka dheer uu fadhiistay ninkii securitygaa baa ka gac meesha laguma ogola meesha nagaa qaadanay macnaa wuu u jeeda yani ma oran nagaa qaadan lakin waa yani ka kac laguma ogola xitaa inaad fadhiisatid iska daa salaada subxaan allah meesha waxaa fadhiisan jiray a'imat alcasr a'imat alfiqh walsiira والحديث والقرآن والتفسير أي هالكا فريسين جري أو كشرين جري وهقول لي طبعا كن أوقف بقاعدة جري مسجد كاسو كبر من الله بتن كن أوقف أي كنتو كن جري علماء الدون كوين كي من جري الشام بلاد الشام بلاد المغرب مصر ماركتي العراق الجزيرة العربية هالكاس من جري علماء الدون مسؤولين من جري مشاهد كان كنيسة بلو بدلي ولا حول ولا قوة إلا بالله ماركتها قيب كمدا المساجد ما يتابن لأنه قيب عجيبة قيب مثلا محراب كوية محراب اللي قلت كنيه حتى آيات القرآنية وأركتها ذلك أركت وتاه ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وكبها آيات قرآنية ملك السكوة القرآن كل مكان مسجد كدوشة مركز قريوه إذا مركز يكتب وبلاد الشام وكان سيدا لو دhisay maartay ashjaar البرتقال geedaha برتقالka ee meel kasta maartay ka dhiseen ay ka beereen naafuradaha biyaha maartay tariiqad muhandisiin cajiib ay ahaayeen oo biyaha markay maartay hoostay ka yimaadaan buuraha biyuhu ka yimaadaan markaasay tariiqad cajiib u sameeyeen magaalooyinka Andalus oo dhancaas ahayd maarta subxaan allah طيب waxaan u imanaa qantarad qurtuba وحا تاريخه كتب التاريخ وحي تري وحا دhisay السمح ابن مالك الخولاني السمح ابن مالك الخولاني وكهريي عبد الرحمن الداخل مرده مسوكا وددكي ugu horeeyay markii khilaafa umawiyya ay dadka u direen Andalus leeyri gala oo islaamka soo faafiya طارق بن زياد iyo maarteen طريف ابن مالك iyo موسى بن صير markay galeen oo ay gudaha u qulquleen kadib markii dambe waatii qurtuba la digay marka waaliga waxaa ka dhigay khaliifii Umar ibn Khattab أحفاديسي واد مقشين الخليفة العادل اللي يراد عمر بن عبد العزيز واد مقشين عمر بن عبد العزيز أيا كدقي والي وهو كدقي قرطبة برقة مو يشوف عمر الداخل والي أيو كدقي السمح ابن مالك الخولاني مركا إساق على قنطرة ذا وحي أهد قنطرة ذا المعجسو وقت جيد أن عادي هم به قاب كالور يسيو اللوهبي واركتا dalxiis baa looga yimaada adduunka meel kasta magaalada maarta soo kala qaybsay baasho qantarada dhamaadkeeda طبعا bilowgeeda waa jaamic kabiir weey dhinacan imka aragtaana waxa weeye waa dhamaadkeedana wuxuu ku dhamaadaa museum ama matxaf nin Faransiis oo muslimay ayaa iibsaday marka alaabtii wixii ay ka tageen muslimiintii qadiimka dhan buu halkaas u geliyay yiri la daawado طيب تكلموا محي ومدينة الزهراء وحوي يدنا معجزة ذي كلا مش كده عجيب كهيد مدينة الزهراء waxay ku taallaa 6 kilomitir ayay u jirtaa magaalada Qurtuba marka khalifuhu wuxuu sameeyay magaaladan waa madiina askariye ahayd nin saaxiibkay oo raga culimada wuxuu igu yiri sababta madiinada الزهراء loo dhisay waa maxay si looga fogeeyo indhaha si Qurtuba looga tago ma laakiin magaalada meesha laga xukumi jiray meeshan bay madiinada الزهراء oo markaan buur bas baa loo raacaa 6 saacadood bay 6 kilomitir ma fogeen laakiin magaaladu cajiib bay ahayd marka taariikhdeeda laga sheekeeyo oo filim yar baan ka yara daawanay oo la tusay markay siday ahaan jirtay berigii hore waxay ahayd madiina askariya oo hada sida midna militariga dawladaha qaar kood meel bay ka dhigtaan military dhan iska dhistaan
saasoo kale ahayd askartaa iman jiray mas-uuliyiinta iman jiray ragga culamada waaweyn baa iman jiray marka wasaarada yurub oo dhan baa iman jiray wasaaraha Europa dowlad bay u iman jireen oo hadiyadaha u keeni jireen maaragtay khaliifaha yani cajiib bay ahayd meeshani madiinati zahraa markii ay muslimiintu dhexdooda ay dhibaatooyin dhex martay dabcan sheekada andalus waa sheeko dheer weeye waxay u baahan tahay buugag baa laga qoray kutub baa laga qoray mujalladaad baa laga qoray boqolaal wax baa laga alifay marka xalqadeena maanta ugu horeysa bas waxoogaa waa taataabanayna insha allahu tacaala markii muslimiintu ay kala jajabeen oo isbaabi'iyeen andalus madiinati zahraa khalas waa laga tegey khalas waa baabaaday waxa weeye dagaal wixii dahab iyo alaab iyo adduunya oo dhan waa la biliqaystay muslimiinta dhexdooda iyaga mugta isbaabi'iyey marka magaaladii waa laga tegey 900 oo sano kadib bay soo baxday laakiin qarnigii 1900 miya adigu 9 sano mise 100 sano ka hor ayaa magaalada la soo saaray ay dib u soo noqon la tusay dadka si ahaan jirtay marka wallahi marka aad meesha aad eegtid waxaad aad baad u murugoonaysaa siduu macnaha islaamku xoogiisu meeshu maray madiinati zahra waa aragtaa waxa ka maarin waxay yiraahdaan atlaal baa kaalay waa wax ma khalaas طيب خلفاء بني أمية ماركتي حكومي قرطبة رج علوس بيهان وحقول ري سيدنا الشيخ عبد الرحمن الداخل عبد الرحمن بن معاوية وعن الأوريجين الصقر قريش إن مديسة هشام بن عبد الرحمن يحكم بن هشام إنه مو حقيقة لفتوا درج مجاهدين يعني عجيبة لكن waxaan jeclaa halka kan inaan maaragtay dhowr calaamadeeyo maaragtay khulafadii meesha joogay cabdiraxmaan ibn al-hakam al-awsat waxa weeye waa kalabaad laba maaragtay laanka buluuga kalabaad waa ka dhisay al-jaamic al-kabiir isagaa sii dhisay markuu iibsaday isagaa dhisay oo kamilay cabdiraxmaan ibn maxamed al-naasir wuxuu ahaa cabdiraxmaan al-naasir ama cabdiraxmaan al-thalith saddex cabdiraxmaan baa ahayn cabdiraxmaan al-awwal iyo al-awsat iyo al-thalith cabdiraxmaan al-naasir wuxuu ahaa cajiib wuxuu ahaa khulafada ugu muhiimsan buu ahaa ninkaasu dhowr iyo 30 sano ayuu haystay xukunka mugta injaazaadka uu sameeyey iyo waxa uu maaragtay cilmiga culimada uu soo ururiyey iyo siduu andalus horta kulligood waa dadaaleen aad iyo aad buu dadaaleen cabdiraxmaan al-naasir cabdiraxmaan al-thalith waxaa la oran jiray waa aqwa muluk Europa boqorada Yurub ugu xoog badan buu ahaan jiray baa waa laga baqi jiray aad bay uga baqi jireen Yurubiyanku maalintuu dhintay Yurub oo dhan baa farxaday ka ugu hooseeya waxa weeye horta Hishaam ibn al-Hakam inankiisa laftiisu aad hawlo aad fara badan buu qabtay laakiin marka taariikhdu ka sheekayso ninkan al-Haajib al-Mansuur ee ugu hooseeya ninkaas waxa weeye xalaqad gooneen u sameynayna الحاجب المنصور محمد محمد ابن أبي عامر المعافري القحطاني نكاسو أصلي يسيمان بو كيمي على يري تاريخ شيء سه لكن نكاسو حبه هي 10 رجونية اللي قاعد سجى يا عبد الرحمن الأول عبد الرحمن الأوسط يا عبد الرحمن الناصر مركا الحاجب المنصور ونكا مسلمين تي أندلس أو رن خلافات كي انتو دحق عليها قاعد أندلس كعيي أو إسلام كعرك كيوي نكاسو عادي ماها الحاجب المنصور قصص بدن بوليه كاسو واك عبد الرحمن الداخل تالدي سوحي كنت على تالدن وحا اسبانيش كان سمي وتاريخ دي سيكا شكينين قرطبة كونيه دا ايا لو سمي تالو سبحان الله وكا كان نوع عبد الرحمن الثالث أقوى ملوك أوروبا وقرادة أبو علوس أبو حب بين أوروبا وها الحاجب المنصور ونكا دي شيء لفتي سوكا إن شاء الله 10 جونية كشكلنا نكا نوعي تاريخ عادي معها ونكا يعني فقير دميرو كل شيء ينشرو درهمين بكل شيء ونكا نقضي بقر ملك ملوك أقوى ملوك أوروبا نقضي حاكم كأندلس أو حكموها وكو قاعدين الطريقة عجيب اجتهاد كيسين عادي معها مجاهد وين نكا نواها ما ننتو لنتي قبر جيسا waxaan ugu leeyahay maalintu dhintay sidii Salax Diin oo kale gaaladu siday u farxeen u maleyn maysid qisad insha Allah waa ka sheekeyn doonaa biidnillahi tacaala heerka uu gaaray cilmiga iyo knowledge-ka iyo macrifada iyo maaragtay dhismaha ay samayn jireen iyo wax kasta boqor England xukuma oo la oran jiray George II warqad buu soo diray khaliifihii هشام الثالث بلا يري تاريخه ورقد بو اسو قري
wuxuu leeyahay ilaa malik ingiltara wuxuu yidhi isku dandalajal ilaa saaxib alcadam buu yidhi khaliifat almuslimiin buu yidhi hisham athalith miyaad karik please buu yidhi macnaha waan ku haddaad rajaan yani waa codsi من جورج الثاني ملك انجلترا والسويد والنرويج برجع سجع صدق سجع كويس ملك انجلترا السويد والنرويج الى الخليفه ملك المسلمين في مملكه الاندلس بوير بقركي خليفي مسلمين مملكه الاندلس صاحب العظمه هشام الثالث الجليل المقام سوء امانيه وحو يري ان وليد سو ترجميه وحو يري غبردayda maaragtay iyo طبعا meel kale ka akhriye kutub kale ka akhriye halka uu soo gaabiyay gabadhayda iyo ashraafta England dhowr iyo toban qof oo ashraafta England miyaad kari kartaa inaan maaragtay aan soo dirno yani ma nagu caawinaysaa oo jaamacadiina ay wax nooga bartaan oo cilmi aan ka faa'iidaysano inaad noo bartaan marka jawaab buu siiyey khaliifii wuxuu yidhi soo dhaweeyey hadiyadana wuu ugu daray soo dhawaada buu yidhi qorto waa la dejiyey oo cilmi dunya ay ka qaateen wax kasta subxaan allah wata risaaladii wataa isagoo saxeexay جورج الثاني حتى هذا كتير جامعة حتى هو عجيب ويه جامعة القرطبة يعني قرمة يعني إن بدن بكورس جامعة يوروب جامعة أقورس يوروب أنا وصل مقلي أكسفورد يونيفرسيتي إنجلند وحالا يكون بقول يسقاش مية يكون لما بقول يسقاش ميلادي جامعة باريس وحال يكون لما بقول يشاني تونيا وقت كله جامعة السدحات وقتها وحيد جامعات كنت على فرنسا ولا مونبلييه وحال يكون لما بقول يسجيتني وسجال يعني مسلمين تو يكوريين تذكر جامعة مسلمين تو حصلوا يكوريين وعلم يقول يقال يقات سبحان الله العلوم تلو يقال ولا قات مسلمين تلو يقات هذا بقى قيبته قدام بيساو حن كان لنا علماء الأندلس يقرأ هذا 10 كانوا ويرد إرادي لكن و10 كيقول عن سمايو أو كسمايو أندلس لكن إن شاء الله تعالى 10 هذا صوص وهذا وحن نجعله إن 10 يرسكو دقنا سكو تحن سمايو إن شاء الله تعالى علماء الأندلس ما يرين علماء الأندلس ولما علماء قرطبة ابن حزم أو كلا وهوها من أعظم العلماء بوها وقتيس ابن حزم مقعيس حالي هذا أبو محمد علي بن سعيد ابن مارت وسعود وقال سفيان ابن يزيد الأندلس القرطبي ورجلوا كله حكي مدن بلاد الشام وبدين بلاد آسيا الوسطى قار كيمي قلفتوا نلعه مصر المغرب كيمي وعوها نكن ابن حزم هذا تالدي سوى دركتها هلو سمي قرطبي كتالا تالدي سوى دركتها اسبانيش باسمي لفتوا معناها ويكرمين تكريم بسميه انه حيلا بدن بكو انفع اسبانيش هل كذا دركت حتى هلو سمي طابع بريدي بلو سمي مارتي marka waraqa lagu dhijo taabaca waa loo sameeyo Spain baa samaysatay waxa lagu leeyahay ninkan wuxuu ahaa akbar culimada Andalus buu ahaa culimada ugu weyn Andalus buu ahaa dhinaca hadalka mutaxaddis buu ahaa adiib gabayaa buu ahaa cilmi rijaal alxadiis buu yaqaanay cilmi siyar siyaasi buu ahaa bani umayya siyaasi weyn buu ahaa bani umayya xoogaa khilaaf baa dhex maray isaga iyo asxaab almalikiya madhabka malikiga khilaaf baa dhex maray kutubtiisa qaar baa la gubay waad aragtaa xataa suuradda kitaab goon baad arkaysaa marka طبعا culimada marka laga hadlayo culimada Andalus waa wax aad u dheer weeye laakiin insha Allah soo gaagaabinayna si degdeg ah 10 kale ku qaadan doona العالم الكبير ابن رشد تالديسو waad aragtaa waxay ku taalaa الجامع الكبير ama may qasr qurtubi ku taal agtiisa waqtigiisana waad aragtaa subxaan allah waxa weeye 1198 bay ahayd waa intan la dhisin jaamacadaha Yurub subxaan allah hijriguna waa 520 yani wuxuu ahaa mumkin de waa 100 sano ka hor dheeraad ibn rushd Spanish waxay u yaqaaneen Averroes hada Averroes trade way garanayaan wuxuu ahaa فيلسوف الزمن يعني فيلسوف زمنه waqtigiisa فيلسوف caadi ahayn buu ahaa علم الكلام الفقهiga gabayga طبك حتى فلك وعلم النجوم كو يقاني halka waxaan ku aragnaa Abbas ibn Firnas wuxuu ahaa caalim islaami kabiir buu laftiisu waa ninkii ugu horeeyay tijaabiyo inuu maaragtay duulo inuu maaragtay intuu samaysto maaragtay baalal sameeyo oo uu duulo
timtaalkiisu maaragtay taaladaas waxay ku taallaa baqdaad bay ku taallaa ninkani wuxuu ahaa nin caalim kabiir buu ahaa dhinaca chemistryga iyo maaragtay sida loo sameeyo maaragtay dhalada maaragtay zujaajka sida loo sameeyo caalim buu ku ahaa cilmi alfalak iyo xidigaha iyo ayuu caalim ku ahaa xitaa zamanka xisaabta zamanka iyo xisaabaadkaasuu aad u yaqaanay waa ninkii ugu horreeyey inuu ku tijaabiyo inuu duulo marka subxaan allah abulqasim ibn cabaas azahrawi wuxuu ahaa ragga ugu muhiimsan alandalus wuxuu ku dhashay madiinat zahra baa la yiri meeshii iminka idin sharaxayay madiinat zahra wuxuu ahaa ninka ugu caansan maaragtay dhinaca qalitaanka hataa waxaa loo bixiyay European waxay yiraahdaan the father of the surgery abuljiraaxa yiraahdaan hataa dalka aragtid kitaab dhan buu leeyahay tasriif liman ajid an ta'lif oo kitaabka waxaa lagu sharaxayaa qalabka dadka lagu qalo adawaat aljiraaxa iyo waxyaalahaas oo kale culamo weyn meesha culamo weyn baa inoo joogay maasha allah waa wax lagu faano taariikhda islaamka marka laga hadlayo generally laanna muslimiin baynu nahay marka aad ka hadlaysid islaamka iyo taariikhdiisa waa wax aad u fiican qofka xitaa iimaankiisa sii ziyaadaya markuu xoranaya awowayaashay يعني قوميات انه كان لما كان لا قوميات مره يمكن مثلا والدوله لا كان لا قوميات كليه من المسلمين نحن marka muslim tahay dawlad kasta aad noqotid marka waxaan lagu keeno inaad fakhar dareentahay iyo maaragtay waa inaad ku faantaa tirada muslimiinteedii bariga halkaas ay gaareen wallahi alhamd Musa ibn Maymun caalimkan wuxuu caalim yahuudi waxay oran jireen Mushi طبعا yahuudu magaca Musa anagu Musa anagu waxaan Mushi taaladan khadku waa yaryahay taalada halkaas ku qoran tahay Mushi ibn Maymun caalim yahuudi uu ahaa reer Qurtuba waxaa la yiri ninkan taariikhdiisu taariikh cajiib weey kutubta taariikhdu waxay tiri ninkan uu muslimay kutub baa tiri ninkan uu muslimay waxaa la yiraahdaa Abu Umran hatta magaciisu tay Abu Umran Musa ibn Maymun magacyada bani Israa'iil baa u badan Abu Umran Musa ibn Maymun dhakhtar buu ahaa tabiib فيلسوف بوها وحوها دخترك سلطانك سبحان الله صلاح الدين الناصر صلاح الدين الأيوبي وقت يسوي جوي وحتى على قولي هاي ويس أركان ومعناها حريب بكده حي سجل صلاح الدين سبحان الله تاريخه عجيب وي مصر بو إن بدن شوي بقى اسكندرية بدن شوي موسى ابن ميمون عالم كلا أولا هو محمد ابن أسلم الغافقي محمد ابن أسلم الغافقي ورير قرطبوها هذا دركتد وبكو قرنت هلكا قردوبا وحوها لفتي سو دختر بوها dadku qali jiray waliba dhinaca indhaha طبيب جراح بوها عيون فارماسيست بوها صيدلي بوها عجيب nin caalim ah oo German ah wuxuu yiri وحالا نيك على مايرهوف وهو يري الغافقي وهو أعظم أطباء المسلمين بوها في العصور الوسطى عصورتي هراء وهو نينا عادي هم بوها وليبا نينا ماركتي جيدها إيو ماركتي دوين كسيد الله بيو تولو يربكون أسي تولوين كقرطبة من عالم عجيب وها نكاسو ابن البيطار نكاسو أدون كنا بايقانا وهو برتي وحوها لفتيسو اختر بوها لنا مارتي أعشاب علم الأعشاب مارتي كيدها أيو آدو يقاني عالم نمات نبوها تالديسو حكو تالا مقالة لهم ملقة كو أركي عادي ما حقيقة إسبانيين باسمي وحسون هو سوكو قرن تما دركتا ابن البيطار إنجليزي بيكو قرن مسلم المجريتي بقول يسيديد ميلادي وكل سرقهر هذا دكتب مقع المجريتي مقع المجريد كلمة المجريد اللي هذا هو مدريد لأنه المسلمين تهيستين مدريد وبرشلونة يوحاسوا إنه هيستين مركان مقع المجريتي ومدريد بكتمي المجريد بوها مسلم المجريتي وهو عالم بوها جميع العلوم علوم تنوع كستا عالم بوها حسابتها كيمستريها علم مارتي حدقها الفلك حركات النجوم حدوه سودا رقاقان عالمين بوكاها هولها سودا ابن زهر لفتيسو ابن زهر وهو عالم وين بوها وكل شيء مقالة إشبيلية وطبيب نواها عالم نواها علم الدواينكو آدو تخصصي وليبا هذا بقى
توجد دم بيسويه شخصية دنيك اللي يرادو ابن زيدون. ابن زيدون وهو شاعر قبياقو قبياقو عجيب عجيب سياسي وين هو نكني وهو غير قرطبوها تاريخ دستوري كان تاريخ لا يكرين وزير بوها دور ميل وزير كان قضي مركي دورده كانت جبتي قرطبو كتجي قال حري أدنا إشبيلية أي هذا نوع راعي لين يرهدو المعتمد بن عباد أو المعتضد بن عباد أبيه بني عباد بوزير دنا وها متبع تاريخ ذا أي لا يكرين إسبانيش يعني إسكتها مسلمين تي حتى إسبانيش كاكشة كيستا شيء كذا نحمرتي ابن زيدون يولاد بنت المستكفي قبل باشرتي لورنشري ولادة بنت المستكفي أبيد وحوها محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الله المستكفي بالله وخلفاء قدم بي خليفة ضعيف اسكاها وخلفاء بني أمية قدم بي مركز تشبيين مركز قبل ناسو مجلس وين مشاعرات بيهد قبل قبياء اسباني اد بلوغي قنا قرطبة قبياء بيهد وحيل هيد معناها ديوان وين بيهد فدي مجلس وين بيهد شعراء يسوي من شري قبياشا ماركتي رجع ماركتي سوغان تيقانا يسوي من شري ابن زيدون كم ذهب قبل aad buu isku jeclaayeen ibnu zaydun iyo walaada gabayadoodii xitaa isbaanishka soo qor gabayo weyn baa dhexmaray labada qof hadda waad aragtaa timtaalkaas qurtuba dhexdeeda weeye laba gacmood oo ishaysta ka sare waa gabayeedii walaada ku qoran ka hoosena waa gabayiisii ibnu zaydun ku qoran marta xilada iyadu agaaru calayka min cayni wa minni wa minka wa min zamanika wal makani ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني وشعراء عجيبة يعني إسبانيش كابا كيا بسرعة وماركتي يقلفت تالوين أسمي ما شاء الله ما أنت سينقتها هاي جزاكم الله خير داوشوا نكسن إن شاء الله فيديو كان كفايديستا ومدنا أوجد بيه تذكر كفايديستي ها أوجد تاريخ الإسلام كا ليش أنا قاعدين يربط بشر أين أوجين إن بارنو وماركتين كفايديسنوية هنا إلا وإن إن channel كا كوسمي دي سبسكرايب جنبريل كنا تابو وواحد كستو أسبوع صباحه إن شاء الله أشارك له أو أندلس كسابسن معناها سلسلة سكوت تحن ومعناها كشيء قصدي مش السومري ودم وكيل دونا بإذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك